assalaamu calaykum. hadday dhacdo maalinun inaad isqiimayso, ha isku qiimaynin aragtida dadka kale ee kuga hareeraysan, waayo aragtidooda badana cadaalad ma aha. way ku liidayaan oo waxay ka hoos marinayaan darajadaada, ama way ku buursaarayaan oo waxaadan ahayn ayay kugu sheegayaan. tusaale, nabillaahi ibraahim calayhi salaam markuu la soo ifbaxay dacwada islaamka, reerahuu ka soo jeeday waxay u arkayeen wiil yar oo dhalinyaro ah, yacni hadalkiisa wax qiimo ah uusan ku fadhinin. taniina waxaan iska leeyahay ma aha ee qur-aanka kariimka ayay ku xusan tahay. allah wuxuu ku leeyahay suuratu alambiyaa aayadda 6 qaaluu samicnaa fatan yadkuruhum yuqaalu lahu ibraahim. waxaan maqalnay wiil yar oo sheegaya inuu sanamyada dudumiyey oo lagu magacaabo ibraahim. waxaan ula jeedaa reerahaasi way xaqireen aabaheen ibraahim calayhi salaam. dabcan waa aabaheen millata abiikum ibraahiima. dhanka kale haddaan kaa tusiyana, nabillaahi ciisa calayhi salaam yahuudda iyo kiristaanka way ka badbadiyeen oo waxay goysiiyeen xadka ibni aadannimo, ayaga oo ku sheegay inuu yahay ilaah, siduu ku xusay allah suuratulmaa-ida aayadda 72. laqad kafara aladiina qaaluu ina allaha huwa almasiixu bnu maryama. dhab ahaantii way gaaloobeen kuu yiraahdeen ilaahay waa masiixi ee ina maryamo ahaa. labada nebi oon tusaale kugu soo qaatay, allah baa mansabkooda iyo meeqaankooda sheegay oo beeniyey wararka ay ku andacoonayaan. allah wuxuu ka yidhi nabillaahi ibraahim calayhi salaam, ina ibraahiima kaana ummatan qaanitan lilaahi xaniifa. dhab ahaantii ibraahim wuxuu ahaa ummad ama hogaamiye ku xiran allah una iisha xaqa iyo runta. nabi ciisena wuxuu noo sheegay inuu ahaa rasuul loo diray banu israa'iil. waid qaala ciisa bnu maryama yaa bani israa'iila innii rasuulullaahi ilaykum. waxaad xustaa wakhtiga uu nabi ciise yidhi reer banu israa'iilow, aniga waxaan ahay rasuul ilaahay ee loo soo diray idinka. waxaa aayaadkan qur-aaniga kaaga cad aragtida dadka kale ay kaa qabaan inayna marnaba ku mathali karin. noqo qof leh ogaal nafeed oo isku eega aragtidiisa. muuqaalku intan ayuu noogu egyahay. waad ku mahadsan tahay daawadashadaada. wasalaamu calaykum.